hadday laabtu bukooto balaa ka dambaysa. waxaa ka dambeeya xanuunadan ka warramayo oo dhan ee xaqdi iyo xaasidnimo iyo ciil iyo urkutaale iyo urxumo o dhan baa ka dambeeya. waxaa ka dambeeyo intaa kaaga daran in xataa acmaashii adduun ama laga aqbali waayo ama ilaahay toobad kaa aqbali waayo. maala nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy xadiidka muslim warinayo, albaabada jannada waxaa la furaa khamiista iyo isniinaha. waa maalmuu nebigu soomi jiray inta badan. waxaanu naqaanaa ramadaanna in la furo, haddii goor soonta iyo albaabada furistoodu in badan baa nusuustu isku xidhaa. albaabada cirka iyo kuwa jannadaba waxaa la furaa maxay maalmaha kan? fayugfaru likulli cabdin laa yushriku billahi shay-a. ilaahay wuxuu dembigiisa dhaafaa qof kasta oo mu'mino ahlu tawxiida. laba laakiin ilaahay wuxuu dhaha iyaga arrinkooda dib u dhiga. wa ayo kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa-un fayuqaalu andiruu haadayni xataa yasطilxa. laba walaaloo isa sudhnaa oo uurxuma jirtay, iyaga waxaa la yidhaahdaa dib u dhiga. marka adduun qura waayi maysid. adduunyadu dee markay cidhidhiga gasho waa luntaayeen oo colaad iyo beliya baas baa ka ratay. laakiin adduun qura waxaad waayeysaa maahae waa maxay? dembi dhaafka allaad waayeysaa. sidaa ogeed waxa fiican ilaa man ata allaha biqalbin saliim buu qur-aanku tilmaamayay. ma liibaana aakhiro nin la yimi qalbi caafimaad qaba mooyaane. xaasidnimada iyo xaqdiga iyo colaada iyo reebninku balfiiri ama daymood ama dhugo ama eeg inta waxa uu inaga reebayo, inta dhiba uu kuu geysanayo. dadka laabtoodu caafimaad qabto nebi maxamed wuxuu ku tilmaamayaa jannada sufuufta hore inay ka mid yihiin. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy kooxda ugu horeysa ee jannada gelaysa sida leylatulbadriga 14 dayaxoo ah ayay u galaan. kooxda ku xigtaa buu nebigu yihi xidiga ugu iftiinka badan le sidiisoo kale iyagoo u muuqda ayay galaan. kuwan calaamadoodu waa maxay? wuxuu nebigu ku sifeeyey quluubuhum calaa qalbi rajuli waaxidin la اkhtilaafa baynahum walaa tabaaqud. kuwan qalbiyadoodu waa sidii nin quro baa ilaahay leeyay oo wax khilaafa iyo wax isu cadhays iyo kuma jiraan. idan waa dad laabfayow baa laleeyahay kuwan jannada xagga hore ka gelayaa buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. deetana wuxuu sii sifeeyey waxay nimco helayaan oo dhan. xadiid imaamu axmed uu wariyo dadku inta badan laga yaabo inay maqleen, aimada qaarna ay tasxiixiyaan. sheekh ilalbani raxmat ullaahi caleyh intuu markii hore tasxiixiyey, marka dambena uu isagu ka noqonayo tadciifinta uu badanayo. xadiidkan culamo hore badan oo ku horeysayna tasxiixisay wuxuu sheegayaa waa xadiidkii maxay anas ibnu malik uu warinayey ama riwaayadka qaarkood. calaa kulli xaal xadiidka macnihiisu wuxuu sheegayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii oo fadhiya ayuu wuxuu nebigu yihi waxaa idiin soo gelaya nin ahlu jannah ka mid a. nin nooloo soconaya buu nebigu leeyahy o ahlu jannah ka mid a. dabeetana nin baa yimi ansaariya oo garhkiisa weysadii ka da-ayso oo labada kaboodna bidixda ku sita. maalin dambe ayuu haddana nebigu yihi nin ahlu jannah ka mid a soo gelaya. isla ninkii unbaa soo galay. mar saddexaad ayuu haddana nebigu yihi nin ahlu jannah ka mid a idiin imanaya. haddana ninkii unbaa soo galay. saxaabi cabdillaahi bnu camar ibnu caas la yidhaahdaa wuxuu is yidhi waar bal ninka kani wuxuu rag ku dhaafay ee loo leeyuun markuu soo galayaba nin ahlu jannah ka mid a soo gelaya, bal raadcee. dabeetana waxoogaa marmarsiiyuu u samaystay inuu martigeliyo. ninkii wuu martigeliyey. 3 habeen buu la seexday ninka gurigiisii. habeenkii markuu la seexanayo bal ninkan wuxuu ilaaliyaa wuxuu qabto. cishuhuu tukadaa, wixii ugu tira lagu qoray salaad buu iska tukadaa, waa iska seexdaa. habeenkii saqda dhexe markuu baraarugo isrogaba waa tawxiidsadaa, waa istakfurlaystaa, yani waa dikriya. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya qofka wayse qab ku seexda ee habeenkii markuu soo kaco subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah idhaha allahuma kfir lii, ilahay dembigiisa waa dhaafaa. markuu habeenkii toose isrogrogayo adkaartaa yar kooban akhrista, ilahay dembiga waa ka dhaafaa. ninkan intaana waa sameeyaa. 3 maalmood markay dhammaatay ayuu wuxuu ku yihi cabdillaahi bnu camar, warniya waxaan rabaa bal inaad ii waranto
salaada subax markay soo dhowdana wuu kacaa unoo dee fajriga dadka siday u tukanayeen buulama wuxuu hi niyow wax dhibi ma jirin waxaanan kuugu imi inaan ogaado waxaad qabato camal weyn oo gaaroo lagugu tilmaamana maan arag ee maxaa halkan ku gaadhsiiyey nebi maxamed sheegaya ii sheeg nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leenahay ahlu janno ah dadkiina ma arkaba inaad ka acmaal badan tahay waxa aad qabataay wax ii sheeg buu ku yidhi wuxuu ku yidhi intaa aad aragta mooyaane wax kale ma sameeyo isagoo la yaaban markuu isiri dhaqaaq buu u yeedho wuxuu yidhi laakiin mid aan kuu sheego qof muslima qish iyo khiyaamo kuma sameeyo wax xaasidnimo iyo waxaan laabta ugu hayaana muslimiinta ma jiraan cabdillaaha wuxuu yihi haadihi alatii balagat bik wahiya alatii laa nutiiq waar waa tantaad meesha ku gaadhay buu yidhi annana aanu kari weyn in laabtaadu nadiif tahay oo aanad cidna laabxumo ugu haynin waa mas'aladan buu leeyahy mas'alada